macadka af soomaaliga ayaa halkan kusoo gudbinaya dabuub. waa maxay dabuub? af ingiriisi waxaa loo yaqaanaa essay. dabuub waa essay ereygan dambe oo kasoo jeeda erey faransiis ah oo ah essay ama isku day marka la turjumo. dabuub waa qaab kooban oo ah curin adabeed ku salaysan mawduuc hal maadada oo sida qaalibka ah gudbisa ra'yi qoraa. qaamuuska Oxford baa u qeexaya essay dabuub ka qoraal gaaban oo ku saabsan mawduuc gaar ah. si fudud marka loo yidhaahdo waxaynu ku sheegi karnaa shaqo cilmiyeed qoran oo gudbinaysa masalo qofeed qoraa. dabuub waa noocyo badan tahay. 4 baa halkan aynu ku haynaa. 4ta nooc. kow waxaa u horeynaya dabuub kashfaadeed baa la yidhaha. tan oo af ingiriiska loo yaqaano expository essay. dabuub kashfaadeed qoraabaa u gudbiya dhegeystayaal ra'yadiisa qofeed qeexid ku saabsan fikrad, dhuluc ama erin. dabuubtan baa lagu qadimaa oo lagu baritaaraa tusaalayaal, sharaxaado, isku midnaanshooyin oo loo yaqaano comparisons iyo kala duwanaansho oo loo yaqaano contrast. dabuubta labaad waxaa weeye sharaxaadeed baa la yidhaha descriptive. siday u shaqalayso dabuubta noocan ah ayaa gudbinaysa sharaxaad ku saabsan mawduuc gaara ama qeexaysa sumado iyo socyo ama qof oo faahfaahsan, wax ama qof oo faahfaahsan. rasmaaday ku gudbisaa, adeegsataa oo ku gelisaa maalinka akhristayaasha cabrashanta dareen. 3 dabuub qancineed. tan oo loo yaqaano af ingiriisiga persuasive essay. noocan qoraaba isku daya inuu ku qanciyo akhristayaal inay qaataan mowqifkiisa ama bartiisa aragtiyeed ee arrin kadib markuu u gudbiyo sababeyn adag oo arrinta la xidhiidha. waqti badan iyo baaritaan baa gala sheegid iyo difaacid fikrad. waxaa kaloo loo yaqaanaa noocan dabuub masreed ama argumentative essay. dabuubta u dambeysa waxaa loo yaqaanaa dabuub marineed oo narrative essay baa la yidhahda. dabuub marineed waa makhayaal laakiin waxay ku maraysaa sheeko, sharaxaado dareemeed. qof ma sheego oo keliya sheekada laakiin ku gudbiyaa isagoo hawsha dabuub. hawsha dabuub baa ku xidhan mawduuc naftiisa iyo waxa qoraa rabo inuu wargudbiyo, cid qanciyo, wax sharaxayo ama madadaalinayo ama cid madadaalinayo. dhabtii dabuub baa kordhisa awoodda falanqeyneed iyo aqooneed ee qoraa iyo weliba akhristaya. waxay qiimaysaa oo bilkeedisaa xirfadaha qoraal ee qoraa oo nidaamisa fikirkiisa si uu uga jawaabo qof ahaan ama u naqdiyo arrin. cabra dabuub baa qoraa ugu qadimaa masalo si hufan oo xadaaraya. ku darsago ardayday ku dhiirigelinaysaa inay horumariyaan mafhuumo iyo xirfado sida falanqeyn, isku midnaansho, kala duwanaansho, waadixnimo, faad, koobni iyo qancin.